ganacsi walba oo gaar loo leeyahay oo asalka maalgelintiisa ay qayb ka tahay hanti maguurto ah oo ay dawladdu leedahay ama lagu daray dakhli ama lacag cadaan ah oo ka soo baxday hanti qaran oo la iibiyey ama la kireeyey sida dekedda Garacad oo asalka maalgelinteeda uu qayb ka yahay dakhli ka soo baxay xeryo kamida kuwii ciidanka xoogga dalka ee gobolka Mudug sida xeryaha Kabida iyo Sinai oo dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ku iibisay lacag ku dhow 20 milyan kadibna ku dartay maalgelinta mashruuca dhismaha dekedda Garacad dakhligaasi waa dakhli guud oo ay wada leeyihiin dadka Soomaaliyeed maadaama ay xeryahaasi kamid yihiin hantidii dawladda dhexe ka hor qaadashada federaalka sidaas oo kalena ay yihiin xeriyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed way xildhibaanashana hayay soo dhow walaalo waad mahadsan tahay waana u mahadcelinayaa intii hadashay walaalkay Maxamed Walda ugu damiyay wax fiican buu ka waramay qofku hadduu fikirkiisa siyaasiga ay ka waramo oo arintiisa dhex gashado waa ku mahadcelinayaa waana oranayaa diwaanin dawlad xukuumad soo ablay gareeyo hadda wasiir Mudug afka ku dhuftay oo 7,000 keenay 7,000 jeebkiisa haduu keenay waa maasan laakiin adna aad wasiir noqotaad dhici karto xilka waa meerto si laftigiisa aad waraadinaysi hadda haddii nin mucaarado barnaamijka fadhiya tahay oo soo dhaweynaa Maxamedow waxaan leeyahay marka walaalkay ka hadlay developmentiga walaal horta developmentiga gobolada ka socda wuxuu ka bilaabmay gobolka Mudug dekadii ugu weyneed oo Garacad baa laga dhisay waqti way soo socotay ganacsato reer Soomaaliya oo dhan iyo reer Puntland maal gashatay laakiin waxa ogaataa dawladdu qayb bay ka haydo xiriyihii dawladda oo dalku lahaa oo dhan baa loo gaday lacag 20 milyan ka badan baa la gashay waxaad kala ogaataa 65 milyan oo dollar lacag ku dhow canshuur dhaaf loo sameeyay hal shay oo dekada galay oo ka soo degay boosaaso ilaa jid ilaa ay Garacad ka gaareen wax canshuur lagama qaadin lacagtii dawladda oo dhan halkaas ay gashay